ninka ragga wuxuu u maleeyaa ragnimadu inay tahay xaaska in lagu qanciyo gogasha oo kaliya ama sariirta sida u taqaaninba ay u maleeyaan ninka ku qanciya xaaskiisa sariirta inuu nin rag yahay balse maya ragnimadu ma aha kaliya taas ee ragnimadu waxa weeye xaaskaaga wax walbo inaad ka qanci kartid. Hello guys, welcome back to my channel. Awlaakiin oo idin leh soo dhawaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, haddii aad hore u saartani mahadsanid. Mahadsanid. Ha ismartiyeen ku soo dhawow channelka waa channelka. Wiilkan waa wiil Soomaaliyeed oo walaalkaaga. Magacaygu waa Wadani Bahar. Halka adiga daawanaysid waa Mojis TV. Barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay lamaanaha isqaba ama xaasaska ama qoysaska ayuu ku saabsan yahay barnaamijkan. Waxaan u kala dhigay labo mid xaaskiisa kula dhaqma sida booyaastiisa oo kale iyo mid xaaskiisa u haysta inay tahay boqortooyadiisa ama naftiisa ama noloshiisa ama suldaantiisa. hadba saa u taqaanid raggu waxay u badan yihiin boqolkiiba 90 inay gabdhaha u maleeyaan ama dumarka ama xaasaskooda u haystaan inay yihiin kuwa booyaas saa u taqaanid ama shaqaalaan dhahe. Okay, inta aan guda galin barnaamijkeena bal haddana nuush hadalku ku hadlayo ila soo dhageysta. daawasho wacan waa rag yani raggaasi ka hadlayo waa rag ula nool xaasaskooda sida jaariyada ajnabiga oo guriga uga shaqeysay xaasaskooda ula nool yihiin. tan uma baahno hadal ku saxan yahay intiisa ma sida boqoradii nin jecel ay haysataa alxamdulillah. haddana nuush wuxuu u sheegay waa run waxa intaan loo colaadinayaa jaceylka xaaskiisa uu qabo iyo lamaantiisa bal sidoo uu qadariyo xaaskiisa sidoo ula socdo xaaskiisa sidoo uu xushmeeyo xaaskiisa ayaa waxa loo bedelaa mar walba si qaldan. aan ka gudubno taas maanta waxaan rabaa inaan u kala dhigo ragga inaan wax fahansiiyo. horta kow gabadha xaaska waa midda dharka ku cadeysa. midda labaad midda xaaska waa midda mar walba ka fikirta noloshaada. midda saddexaad xaasku waa midda mar walba ilaalisa xanuunkii murugaha ka ilaalisa murugada kula qaybsata dhibaatada. midda afaraad xaasku waa midda mar walba kula qaybsata nolosha loo yaqaano raaxada. xaasku waa midda mar walba fahanta baahidaada balse waxay aad ka dhigtid unbay xaaska ku dhaqmaysaa. xaaskaaga sida adig u dhaqantid unbay u dhaqmaysaa. haddii aad si xun u dhaqantid si xun ayay kula dhaqmaysaa. haddii aad u dhaqantid si fiican ayay kula dhaqmaysaa. balse hal eray aan ku darsanayaa raggu ay u maleeyaan inay tahay wax fiican. ninka ragga wuxuu u maleeyaa ragnimadu inay tahay xaaska in lagu qanciyo gogasha oo kaliya ama sariirta sida u taqaaninba ay u maleeyaan ninka ku qanciya xaaskiisa sariirta inuu nin rag yahay balse maya ragnimadu ma aha kaliya taas ee ragnimadu waxa weeye xaaskaaga wax walbo inaad ka qanci kartid in aad ka ilaali kartid murugada xanaaqa waxyaabaha oo dhan oo xumaan ah xataa dirdiralaha inuusan dhigteeda wax uu ku shubo aad ka baabi'i kartid. ragnimada taasaan u aqaanaa uma aqaani sariirta oo kaliya. haddaba waad fahantaa filayaa mana rabo inaan ku dheeraado videoga. ninba wuxuu guursanayaa gabar wuxuu ku guursaday in la isa siiyay ama ay isku dareen familka kadib wuxuu mar walba macnihi iskugu dhacayaan waxyaabo aanan weyneyn sida gabadha inay maseerto sida inuu asaga waxyaabo oo guriga ka fahmo macnihi waxyaabo adiga aanan macno lahayn oo u baahan ninka ragga inuu asaga baabi'iyo ay iskugu dhacaan. midda kale waxay tahay gabadha oo xaaskaaga ah waa xaaskaaga haddana ma aha shisheeyahaaga. adigana gabaray waa ninkaaga ma aha shisheeyahaaga. sidee bay ku dhexeen dadka Soomaaliyeed nin iyo xaaskiisu mana aha col mana aha heshiis way loo dhahay taas ayaan rabaa inaan ogaado. laba qof isqaba mar walba nolol iyo wax wada qaybsada farxad gogol wadaaga in la dhaho
marna waa heshiis marna waa col. waa mid aan fahmi waa aniga sidee col ku noqon kartiin labadiina marba ina heshiis ahaataan ninka hadduu xanaaqo uu ka xanaaqo wax aanan macno lahayn waa inay gabadha fahansiisaa. waxaan fiidiyogan u duubayaa waxay tahay inaan u sheego ragga dumarku ma aha booyaas guriga lagu keenay ee waa noloshaada, waa mustaqbalkaaga, waa farxadaada, waa xaaskaaga, waa horumarkaaga, waa waxyaabo badan ayay ku tahay. haddii aad dhaqaaleysanin yaa kuu dhaqaaleynayo? haddii aadan ka baabi'in xanaaqi iyo murugada yaa ka baabi'inayo? anima iga sugaysaa inaan ka baabi'iyo mise waxaad ka sugaysaa wiilkan kale? yaad ka sugaysaa ii sheeg. waad rabtaa gaariga inaad kaxaysid balse xanaanintiisa maritid. waa wax lala yaabsama. gaariga ii dhiib waan kaxaysanayaa, gaariga hal isii waan gadanayaa, mana dhaqaaleynaye, ma xanaaninaye, kama fikiraye haleeskiisa dhibaatadiisa waxa ku yaala dhan ma ka fikiraye, ma qurxsanaye, ma dhaqaaleysanaye. marka isma is dhaqaaleynayo bal ii sheeg asima iska fikirayo waa maya. dumarkan waa sidoo kale. waxaad ka soo qaadaa naftaada maanta haddii aadan xanaaninin, hantidaada haddaadan xanaaninin, gabadhan waa sidoo kale. waa inaad xanaaneysaa mar walbo xaaskaaga, waa inaad ka fikirtaa, waa inaad u qadarisaa sidaad naftaada u jeceshahay inaad u qadarisid inaad ayadan u qadarisid. waa inaad u qaadaa sida boqortooyadii waaba tahay boqortooye ilaah baa ka dhigay alxamdulilah. haddii xanaaqdo waa inaad sabar siisaa. gabadha waxaa keliya ku filan keliya waxaa ku filan markay xanaaqdo inaad hab siiso oo keliya. waryad haddee wadato oo aad raali noqo hal ma tiraahda ama aad inaad gaadid hab siisid oo aad daanka ka dhunkatid ka shumisid, wallaahi waxaa kaga farxad badan wax walbo loo sameeyo. waxaa kaga farxad badan inaad hal mar daanka ka shumisid oo aad adigoo raali haw ama raali gelinayo laabtaada gelisid. wax walbo ay ahayd ee ku fikiraysa way ilaabaysaa. laakiinse ninka ragga hadduuba isla weyn yahay ama uu waxyaabo kale qalbigiisa ka dhadhacsan yahay, war lacagaad ku khasaarisiin, war waad tukansataan, waqtiyaad gelisaan, waad u calaacashaan, waad dabaraadisaan, waad raacdaan, balse markuu ilaahay nii sahlo maxaad u kibirtaan? waa midda aan aniga fahmi la ahayn. war caruurtu marka wax loo diido way u ooyaan, way u calaacalaan, maantana waxaas loo diiday u ordayaan, balse markii faraha laga saaro wax yar usaan dhahay uu ku ciyaaraya, meesha uu ku ciyaaro kaga tagay uu iska dhaqaaqaya. ma sidaas oo kale ayaa tihiin caruur miyaad tihiin ragow? waa aniga fahmi waa midda waxyaabaha aad sameynaysaane. haddii fiidiyogan uu ku qanciyo fadlan like saar, u sheer garay qof walba oo aad jeceshahay inuu wax ka barto nolosha iyo xaaska qadarintooda. commentigan wax walba fikradaada ah noogu soo dhiib. waa walaalkiina oo idinle mar walba waa idin jeclahay. igu caawiya oo keliya inaad dadka waxa aniga aan u sheegayo inaad fahansiisaan. dayaxdan nuursha mashquulka ha laga daayo. waa nin lamaanaha iyo jacaylka iyo xaaska iyo guryaha ku fiican. waa rag dhaafay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi. ragnimo uma aqaana sariir la isku qanciya, waxaan u aqaanaa ragnimada sidan in loola dhaqmo xaasaska. boqortooyin laga dhigto waa in laga dhigtaa gacantaada midig gacantaada bidix noloshaada oo dhan barkeeda waa inaad ka dhigataa xaaskaaga. fadlan haddii aad xaas leedahay ku dadaal xaaskaaga xanaaneyso. haddii kugu xumaato adigaa wanaajisan kara. wax walba waa la wanaajin karaa. wax walba waxay u baahan yihiin maskax iyo xeelad iyo ragnimo. halkaas waxaan u gudbayaa fiidiyogeena. fadlan haddii aad fiidiyoga ku cajistay karaal noqo. haddii aad ka heshane ha ka ilaabin. ولكن إذن مربو waa idin jeclahay. السلام عليكم ورحمة الله.